maxaa kaa hor jooga inaad guushaada ka salgaadhid waa maxay asbaabaha kaa hor jooga inaad wixii aad dhigatay aad go'aanka ku gaadhay inaad gaari weydid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu coach xuseen oo dhammaantiin islaamaya meel kastoo naga daawanaysiin waxaan kula wadaagayaa laba qodob oo kuu suuro gelinaya in aad ka salgaadhid ujeedooyinkaaga aad dhigatay rajooyinkaaga aad dhigatay waxaad doonaysa inaad gaadhid labada qodob runtii haddaad ku dhaqantid waxaan kuu hubaa 100% inaad gaadhaysid qodobka ugu horeeya waa waxa loo yaqaano samirka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha kuu suuro gelinaya inaad ujeedadaada noocay doonto ha noqotee inaad ka salgaadhaysid tusaale ahaan iminka waxaad dhigatay inaad caloosha iska ridid waa ujeedo inaad miisaankaaga dhintid waa ujeedo inaad dhaqaale samaysid waa ujeedo inaad wax weyn ciyaalkaaga korsatid waa ujeedo inaad wax weyn cibaadada aad si fiican u cibaadaysid waa ujeedo ujeedooyinkaas oo dhan waxaad ku gaari kartaa in aad samirtid waayo samirku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha lagu hormaro aakhiriya adduunyadaba samirku haddaba waa maxay samirku ma aha inaad waxa weeyaan aad iscadaabtid ma aha inaad waxa weeyaan wax walba iska mamnuucid ma aha samirku waa deganaansho waa inaad istajisid marka wixii aad u socotay aad gaari weydid waa inaad istajisid ama wixii aad u socotid aad ku khasaartid ama wixii aad u socotid ay kaa hor timaado dhirbaaxooyin waayo waxa macaan iyo waxa fiican waxa kaa hor imanaya waxyaalo waxa weeyaan adag sidaa daraaddeed ninkii gabayaaga wuxuu yidhi waxaan waxa weeyaan yaraysanayaa oon wax dhibir ka dhigayaa waxa adag si aan u gaadho waxaan doonaya haddaba waxaa la rabaa qofka bini aadanka inuu samir yeesho qodobka haddaadan lahayn waxaan ku hubaa inaadan horumar samaynin weliga nooc doon ha noqdo samarka marka qodobka koowaad samir yeelo samirkuna waxa weeyaan waa sifooyinkii ambiyada samirku waxa weeyaan qof kastoo adduunkan wax ka sameeyey nooc doon ha noqdo dhaqaale ha noqdo waxa weeyaan jago u carri ha noqdo waxa weeyaan waxa uu u baahan yahay inuu waxa muddo siiyo waqti qodobkaas waa qodobka koowaad qodobka labaad waa joogtayn maanta haddaad bilowdid aad berrina aad ka tagtid xaggeed u socotaa sheekh guusha waxay ku timaadaa joogtayn waxbaad dhigatay tusaale waxaad tidhi waxaan rabaa in aan salarigayga wax ka bedelo waxaan rabaa xirfadayda inaan wax ka bedelo waxaan rabaa ciidadayda inaan wax ka bedelo waxaan rabaa dhaqaalayga inaan wax ka bedelo waxaad u baahan tahay joogtayn baad u baahan tahay haddaadan joogtayn lahayn ha iswereerin dadkan ha dhibid haddii aad marka asxaabtaada ku timaado adigoo ujeedo dhigtay oo leh anigu waxaan doonayaa saacaddan waxaan qabanayaa saaxiibo shaah iskala soo aadtay maqaaxidaa joogtaaba waad iska raacdayba macnaha waxay ka dhigan tahay marrabtid joogtayntuna waxay ka mid tahay waxyaalaha la isku dhaafo waxaa laga yaabaa laba qof oo meel ka wada shaqaysa inuunan saacad joogtayo inuu qur-aanka akhristo inuu wax barto lama soo gaadhayo dee laakiin halkaas ka ciyaarayo sidaa daraaddeed labadaa qodob waxaan kuu hubaa ama inii hubaa aman hubaa haddaynu ku dhaqanno inaynu ujeedooyinka oo dhan aan gaari doono anigaana tusaale iska soo qaadaya ujeedooyin badan oo dhigay sanadkan dirba bishan waan gaadhay sababta maxaa yeelay waxyaalo fara badan baan iska daayadid waxyaalo fara badan baan waayo markaad doonaysid inaad wax joojisid waxbaad ka tegaysaa sheekadii baad ka tegaysaa hadalkii badnaa baad ka tegaysaa waxa weeyaan ciyaarta baad ka tegaysaa sababtoo ah waxaad u socotaa inaad ugaadhsatid kalluun weyn markaa ugaadhsanaysidna dee waxaad isku diyaarinaysaa waxa weeyaan si aan caadi ahayn sidaa daraaddeed haddii aad doonaysid inaad guulahaaga ka salgaadhid labadaa qodob ku dhaqan xasuusnada in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu